تو حفيزك ورفافين تو شاقة وكله وريا ديجان كبحان أنا كو مال عن ديجان كوجس عناي ورد مجرده كو تذكر ديجان كانوا ضلنا أنا مال كمان نايمان تذكر أنت بدنا نمد باجرتون ربنا عشاقه ورباهين تلك الدبتي سلقل يهاي أو كون الله حري كتيرته ويرته ديجان كوبلارية حدود اللي Soomaali oo dhan baa degta TV-ga qofka iskale dawlad ma leh TV-ga horta ruux baa iskale ama company baa iskale kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo waraysi ku saabsan warbaahintii ka shaqeynayay dawladda deegaanka Soomaalida ee madaxa banaaneed oo ay albaabada isugu laabtay xukuumadda dawladda deegaanku iyo wararkii ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaaday waxaana barnaamijka martiigu ah wariye Najiib oo kamid ah warbaahinta albaabada la isugu dhuftay hawlwadeenkii ka howlgalayay waxaan rabnaa inaan wariye Najiib ka waraysano waxa sababay in TV-yada إذا عادي BBC دقيقة كشقينا يلحقه إيه حالته ماشي هركم مرة يسوي أوريه كسر كويرتيف عبد الرحمن ودوه صاحب نجيبه محا سببي إن TVيو إلى عشان أي طبعا إذا عادي BBC ودقيقة كشقينا إن هالمر أي ورقة حكومته كسر صارته إن لحقه صارته وده وين كذا مثال هيدا ليه ورت والله جوان وهو تقدروا أنا كلفتنا هذا نقول لي ولول فربضان صح iyadoo oo in kastoo horta sanadii u dambeeyay hadda muddo sanadkii u dambeeyay caqabad farabadan iska jireen oo warbaahinta iyo xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Mustafa ay isku fiicneen isticmaalaan wada isku fiicneen wanaag fiican ka dhaxaynin oo caqabado farabadan ay warbaahintu la kulmayeen waxa jirtay ismaan dhaaf ka jiray warbaahinta iyo xafiiska warfaafinta wada shaqeyntooda taasoo ku skareysay warbaahin isba waa ganacsi qaabka u shaqeynayaan warbaahin walba institution walba wuxuu leeyahay sharci iyo nidaam gooni ah laakiin dal walbana wuxuu leeyahay sharciyad iyadoo marka la isku dabaqayo sharciyada dalka iyo nidaamka u yaala warbaahinta mar walba waxa la sameeyo wax la isku imaado xal masruun oo dhaxlahaad ah marka xafiiska warfaafinta korkii deegaanka isbedelku ka dhacay warbaahintu waa la soo dhaweeyay sharciya la siiyay ogolaansha la siiyay shaqeeya la dhahay still sidii waa lagu shaqeynayay deegaanka guud ahaan dalka doorasho ka dhacday oo walkii Mustafa ku soo laba noqday isbedel baadana xafiiska warfaafinta ka dhacay wasiir Cabdiqaadir Shiid nin la dhaho waa yimid oo xafiiska loo dhiibay xafiiska markii loo dhiibay inta badan runtii korkii reality la sheegayo Cabdiqaadir Cabdirashiid ma baranin saxaafadda mana yaqaano inta badan boolasiga iyo nidaamkeeda ma yaqaan taas way marka waxay kalifaysaa mar walba qofku wuxuu barto uu shaqadeeda ku shaqeyn kara laakiin intaas uu warbaahin hada 15 TV iyo idaacadii baa warqad lagu soo qoray laakiin inta la xiriyo ka badan tahay waxa ku jira ilaa 6 TV ama 5 TV kale oo aan warqada ku qorayn oo arkiifyada aan ka oolin warqadu in ku waliyaga qolka hore hada 15 TV idaacaddan la xiray arkiifyada waxa yaalay daatadooda ayaa taalay marka TV-dan kale marka waa ayaguna waa la mid waxa la xiray oo si guud wax TV oo madax banaan iyo idaacad oo fiid laga reebo ma shaqeynayo marka xafiiska inta badan wuxuu noo sameeyay ilaa 3 kulan oo waxaan ka qayb galay tashiyan loo sameeyo oo xafiiska warfaafinta barkaalay aan wada hadal oo qaabka u shaqeyn lahaydeen nidaamkii bal xafiiska iyo warbaahinta aan soo dabaq lahayn oo si cadifad la'aan ama caqabadayna ka iman wada shaqeyn lahayn aan dejino marka kulamadaasi inta badan waxay noqonayaan kuwa kulamo xafiiska warfaafintu wariyaasha korku ku casuumo ay meesha xafiiska imaadaan hal dhan uu halku ka socdo oo may waxa hadlayn warfaafintu hadal wasiirka imanaya wasiirkii uu hadli kolku hadlo وكشركي وسيركو هناك هذا وفرحان له يسوون نجس وري وباي SRTV بكشقين شري ما با نظام كا مقرر ساليد الشيبك أما معمول تانك حالا جاي باين يكويرتوا الصحافتهم ببرت هو جامين تقاب كله هو جامين له واحد يدا لفت مونه برانين قف كنا وإحنا واحد experience وخبرة وإحنا وأقوان كل كي مركز حفيز للشغل لو ربنا نطلع معموله ده أقوان تكمل تكتو وهوين أقوان تدي لا ده مركز ولا قد وكتب هالليانو وكل لو ده كتب هاللان شركة واحد بس بالدي أنا كعبشان قبني عقبتها تشري كل يقول كهلا أنت شنة تينت كلجة هذا شمه وأنا أنا وين دلوقتي سوق بيا هذا كان أمامير تاي سوق بس كبعد وحي تعمل سوق هنا مرة والبنا تمام الكشرة يسقى أود لي ماشي إنه كفصح حيو إنه كاحرة بس مرة بأود لي مركا
heer waxaa jirtay guddi xafiiska warfaafintu wuxuu dhahay guddi dhista guddi baan dhisanay guddidaas markaa guddidaas waxay ka shaqeynayaan warbaahinta oo dhan iyo xafiiska warfaafinta guddidaas u dhaxaysa oo xafiiska warfaafinta abaabirtiisa ka soo qaada awaamirtu ma aha nidaam xafiiska kama shaqeyn anagu oo waan ka madax banaanay laakiin waa wararka dawladda xogaha nidaamka dalka looga shaqeeyo oo xafiiska warfaafintu waa information kii gudbiya dadku marka information soo gudbin laha weeyaan marka guddidii kolkii aan dhisnay dhankana waan ka soo dhameystiray guddi afar aan dhisnay guddida afarta aan dhisnay xafiiskii baan u gudbinay oo TV walba warqad soo saaray guddidaas uu ku xaqiijinayo inay yihiin guddi iyaga matalaysa xafiiska warfaafinta u matalaysa inay yihiin guddidii marka xafiiska warfaafinta markii la geeyay xafiiska aan u geynay guddidii iyo warqadihii ogolaanshaha dhammaan muddo 2 bilood ah buu wareegaysanay oo jawaab la'aan wixiina maana aqbalin iyo waan aqbalin midna aan laga hayn still waqti marka wuu iskuray xilliga marka hadda la soo gaaray alxaasil bilo ka hor waxay dhaheen iyo guddidan marka xafiiska warfaafinta waxa laga rabay waxa inay warqad sidan warbaahintu u qoreen iyaguna ay u qoraan oo dhahan guddidan anaguna waan aqoonsanahay marka kolkii dambe waxay soo istaageen anagu wax warqada ama wax ogolaansho sameeyna ma jirtay sidii ku shaqeeyay sidii iska hore ku shaqeeyay guddidana iska ku shaqeeyay sababta kala danta warqad lagu qorin macnaha waxa ka mid tahay in lagu aqoonsanayn nidaamkaas marka aan ku soo shaqeynay waxaa jirta marka warbaahintu mucaarad bay tabisaa muxaafid bay tabisaa arrimaha bulshada way tabisaa marka qof ay u janjeedhay ma jirto haddii uusan ahayn institution laga leeyahay dawladdu ay leedahay uusan ahayn maadaama wax madax bannaan aad sheeganayso cid walba oo sharciga dalka aan xeertiraaf ku ahayn waa tabinaysaa waxaa jira konfliktiyo dhaco oo reero u dhaxeeyo inta badan warbaahintu ma tabiso sababta iyadoo laga fiirinayo isku dhacaas hadii la tabiyo haduu dhibaatooyin keeno xitaa hadii la tabiyo wararkaas xafiiska nabadgelyada xafiisyada ay qusayso yaa la soo marsiiyaa ilaa la fasax lama tabiyo marka sharciyadaas oo dhan anagoo u hoggaansamayna xafiiska warfaafintu bilihii u dambeeyay waxaan dhahnay anaga sidan kuma wada shaqeyn karo wax xogihii aan rabnay inay dawladda naga siiyaan noma keenin sababta xogahaas waxa noqon kara kala shirarka hadda madaxtooyada ka dhacaya kuwa dalka ka dhacaya kuwa go'aamada la qaadanayo wixii maadaama xarunta TV ta dalkii ay joogto ka sharci gareysan tahay waa in xogta lagu soo gudbiyaa sababta bariga korkii lagu soo gudbin jiray hadda laga joojiyo waxay ka macno tahay in aad leedahay in isbedel dhacay marka anaku caqabad dhankanaga kamaysan imanin oo waxa ugu muhiimsan dawladda mar walba waan timin jiray caqabadaha isku dhaca keeni karana waan ku dheeraan jiray anagoo sharciga nidaamkan ay soo dejiya dalka fulinayna marka bilihii u dambeeyay maalmihii u dambeeyay waxaan wareysanay wasiir shir jireed buu qabtay marna wareysanay la dhaho Cali Samiir oo wasiirka xuduudaha xafiiska oo xafiiska xuduudaha heer deegaan yaan wareysanay shir jireed qabtay TV ku meel ku yaalo ama idaacad meel ku taalo hadii lagu soo wado shir baan qabanay anoo hebel title kaas leh adu soo ku diiday meesha ma taalo sababta qofka qof dawladaba oo xafiis buu joogaaba sababta hadduu xafiiskiisa joogo inuu banaan joogo lagu dhigi karaa hebel banaan buu joogo xafiiskiisa title-kiisa shaqaalihiisa ciidanka amaanka wixii baa joogaba xafiiska kan soo duubnay xafiiska warfaafintu habeenkii soo hadlay wuxuu dhahay anagu ma aqoonsanin ninkan xilka waa laga qaaday warkii tabiye been abuur baha anagu xilligaas kamaana dabatay karino ninkan aan tabin anagu saxiin waan ku saxanahay sababtoo xafiisku jooga xafiiska uu joogana dawladdu deemayna sheegnaan xilka ka qaadan hadii iyagu sheeganay hoos u sheegan official kamaysan dhigin wixii ciidankiisii wataa xafiiskiisii buu jooga shaqaalihiisii baa jooga title-kii wixii baa u yaala nin xafiisku shil ku shaqeynay anigu ma kala garanayo farqi aan ku gargarto waxa caalam qaybna miyo waxa laga ma ogaan karin marka taas way soo dhacday maalmo dhaweyd marka waxaan isku daynay bal caqabadaha jire waxaan loo helo anaga wariyaasha waxaan rabnay inaan xafiiska u tagno oo dhana balni sidaan si aan sameeyno xal kale guuxna uu iska jiro oo runta kolkii la sheegay kolkii caqabada ay iska jiraan guuxeed iyo barasharkeedan uu iska yeelanayaa marka habeen dhaweyto si kadisa bay xafiis warfaafintu warqad soo saareen ay ku qoran yihiin TV-da ka shaqeynayna oo dhan iyo idaacad BBC-da ay ku qoran yihiin kulay waa sharci darre wadanka
ku joogeen marka sharci darradaas ay ku joogeen anaka 4 sano iyo bilu hadda isbedel ku dalka jooga iyo deegaanka isbedel laga jooga 4 sano waa joognay waxa jirta kolka wadanka la soo galayo TV-gu iskama soo galo ruux ma qalabuu TV-gu leeyahay xafiis uu leeyahay shaqaale uu leeyahay TV-ga xafiis kolka soo galo warqad buu xafiiska u qortaa anoo TV-gaas oo noocaas halkaas xarunteeda weyn ku taalo xarunteeda kale halka ku taalo baan rabaa inaan meelba ka shaqeeyo maxaad iga leedii xafiiskaas marka dawladdu waxay xaq u leedahay inay diido inay ogolaato xafiiska warfaafinta marka aniga arteen baan u shaqeynay xafiiskaas kolkii isbedelka TV ugu horeeyay ka furtay deegaanku ah kolkii laga tago هون كابل iyo adoo university loo tasii joogto marka laga tago TV-yada kale ay maaday kugu reebo aha wali meeshan deganay xafiiska xabash warqada loo qoray way soo dhaweeyeen warq leesinku meel gaar binasiye leesinkaasi wuxuu ka turjumayaa waxa ku qoran in TV-gan oo halkaas laga leeyahay oo saas oo dalka uu sharci ka shaqeyn karo ilaa intuu soo dhameystiranayo sharcigiisa kale weyn heer fadara marka already waxay ka mid tahay inaad sharci ku shaqeynayso sababtoo 4 sano madaxweynaha xafiiskiisa tagnaa wasiirada xafiiskooda tagnaa safaradaha galaa heer federal maamulada ra'iisul wasaare ama cid walba ka imanaysa xafiiska dawladda dalka meel walba yaan la shaqeynaa qof wadanka laga garanayo oo sharcigooda uu ka socdo nidaamkooda baanahay sababtoo xafiiska hadda warqad u qoro si official uga soo jawaaba sababtoo qof aan la aqoonsanayn oo sharci darra ma ahayn marka koow waxa horta anaka abakaag nagu ridaba 4 sano yay sharci darro ku joogeen koow horta wax sharci darro anaka ku joognay ma lahayn dawladda ogolaansho nasiis ogolaanshaha marka waa sharciyada dalka inta badan dalku waxa xeersha jabladhaas ka jira isaga shaqeeya koow horta waxa sharciga la dhaho waxa bixiya heer federaal wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha warbaahinta heer federaal baa bixisa xafiiska warbaahinta iyo xafiiska Ethiopian Territory bixiya laakiin dawlad maadaama dalku federaal iyo deegaan walba yahay haddana xeerar iyo nidaam gooni ah yuu leeyahay deegaankaas marka warbaahinta uu soo gudbiyo buu xafiiska kale heer federaal leesinka siiya leesinkaas marka ogolaa koow waa in horta deegaankaagi laga soo gudbiyaa oo halkaas ka soo Addis Ababa toos ma soo qaadan karade karkii heer fadar deegaan laga siiyo baan taas heer deegaan laga siiyo marka anaga heer deegaan baan laga siiyay waana buuxbuuxin anagu xeerlaanta tagno ka buuxsanay cadaaladda tagno ka buuxsanay warqad heer federaal way taalaa oo xafiiska heer federaal bay taalaa oo hadda isniinta soo socota adu la arbacada baan warka sugeynaa soo baxdo marka tii weynay marka tii ku meel gaarkeed tii marka 6 bilood ahayd xafiiska warfaafintu 6 bilood marba cusboonaysiya 6 bilood marba cusboonaysiyo 6 bilood u dambeysay cusboonaysiin way diideen sax noo cusboonaysiin ku dhana sidee warqada tan kale dalka anigu si shaqeynada aanu si joogno waana intii buuqana joogay waa 6 bilood u dambeeyay waliba anaka hadda inta badan TV-yada lix maalmo bishii u dambeysay ba ka dhaceenba kameen silaasaneenba marka xafiiska warfaafinta gabiyaanba bari ma goynina saada isa iyagu ma soo istaagay marka caqabada waxa keentay xafiiska warfaafinta 4 sano waan soo shaqeynay xafiis anaka sharci daraasan 4 sano ku shaqeynay 4 sano waan shaqeynay san ku shaqeynay madaxtooyadan galaa inaga ma celiso xafiis safaraan galaa inaga ma celiso iyaga waliba codsiga noo soo dirsada shirkan kaale naga soo tabiya seen 4 sano wax sharci darra ku shaqeynay ko xafiiska warfaafintu warbaahinta ku xafiiska warfaafintu la shaqeynay deegaanka la shaqeynay markii ay joojiyeen warqada ay soo saartay xukuumaddu ka TV ahaan maxaad sameyseen maamuladiini ma wargeliseen wax talaabo ma la qaaday TV-yada ma isu tageen oo yani maxaad sameyseen talaabo nooc reality de korka dawlad sharci soo saarto ama ha saxsanaado ama khaldanaado koow waa inaad horta u hogaansatay amarkaas sababtoo
adiga dee haddaad damacdo inaad waxyaala kala samayso inaad dee waa iska hormaysaa marka meesha qalalaaso inaad wadi bay meesha kugu cadaanaysaa anaga kolkii amarka la soo saaray waa u hoggaansanay xafiiskii xarunta waa xidhnay maamulkii hore ee TV-gana kolkiiba official waa u gudbinay marka dee waxay dhaheen qaabka kale soo buuxbuuxin kara ama soo dhameystiri karo hawlaha kale baan u galeynaa marka wari ahaan laakiin waxaa jirtay afagaado xafiiska qaar xafiiska warfaafinta kale qaar xubno ka shaqeeya ay u geysteen dhaheen wariyaashu qabax bay qaata waxaan xafiiska warfaafinta qofka haduu xubin ka yahay wax ka shaqeeya hadda agaasinka qaar noocaas laga yaabo warbaahinta xitaa wariyaasha afagaado u geystay taas oo delid ku ah sharciga nidaamka wada shaqeyneed iyo sumcad ahaan aan u fiicnayn marka wariyaasha waxaan doonaynay inaan dhahno maadaama dadka inta badan qaar warbaahinta xitaa xafiiska wuxuu adeegsaday warbaahintan sharci darri ku shaqeynayeen marka anaga taas ka jawaabayna waxaan damacnay inaan isku imaano oo dhahno dee waxaan sharci darro kuma shaqeynaynin si sharci ah baan u shaqeynayna anagu oo wax sharci darro aan ku shaqeynaynin maysan jirin marka niyo wali still ma suurtagelin wariyaasha qaara la xiray muxidiin show la dhaho saaka 8 iyo barkii subaxnimo gurigiisa laga soo kaxeeyay kalsantii u shaqeyn jiray baa gurigiisa laga soo kaxeeyay ugu dhaanu ma tagin hanjabaado qaarkood baa la sheegaya in kastoo nagu dhicin laakiin xafiiska qaar wariyaasha kamid ah xafiiska booliska komishanka xaraasan soo wacno hanjabe lahaa oo imanaysan wax noocaas nagu dhahay marka niyow de xal ma noqonayso mid kale mid baa jirto xafiiska warfaafinta uu sheegay uu kale wariyaa deegaanka ka baxaan anaku meel aan deegaanka uga soconay horta ma jirto kow dadka deegaanka u dhalanay anaku meel kama iman dadka inta badan mid baa jirto raba inaan sheego warbaahin dalka dibadiisa laga leeyahay oo kuwan la xidhay ku jirta wayarta deegaanku balaariye xuduudu leeyahay Soomaaliya oo dhan baa degta TV-ga qofka iska leh dawlad ma leh TV-ga horta ruux baa iska leh ama company baa iska leh company-gaasina de meel ka soo jeeda marka inta badan warbaahinta 15 TV idaacad oo de wall oo laga reebo adduunka oo dhan ka gobolada baa laga buur jarar xuduudaha kale afdheer meelaha baa TV-da laga wada leeyahay mooyaane de laakiin qofkani TV-ga furtay halkan keensaday interest wuxuu leeyahay inuu de meesha wax ka dago qof laakiin la leeyahay ama Hargeysa ka imaaday wadanka ka baxo ama Nairobi ka imaaday Nairobi ka baxo ama Xamar ka imaaday ma jiro Soomaalidu si meel walba wada degtay halkan wada degtaa qofkuna hadii la dhaho hebel baa tahay TV-ga ka baxo dalka de waa in ku leeyahay deegaanka intiisaas marka magaaladiisa soo fadhiisan marka intaas ku matalayahay ma jirto TV tagalabaad waxa jirta waxay ku leeyihiin wariyaashu deegaanka ka baxaan dadka qaar oo sheegayaan maqlay anigu de dhammaan tanita ka shaqeys qof walba waan aqaana qof meel kale ka imaad ma jiro qof walba meeshan deegaan ku dhashay ama dhagax buura ku dhashay ama qabdaara ku dhashay ama gooda ku dhashay ama ha ku dhasho liibana ku dhashay daawa ku dhashay ama jijiga ku dhashay qof walba deegaankan u leeyahay waa in qofka dalka jooga dalka mar hadii ay intaasi dhacday wax dhexdhexaadina ma gasheen maadaama waxaan wax sharciyada ku qotomo toos inuu ahayn ay meesha ka muuqato ay tahay isfaham waa idinkii xafiiska warfaafinta dhexmari waay cid waan iyo dhexdhexaadin gashay isku dayday ama socota ma jirtaa ma jirto wallahi hadda cid saasoo dhexdhexaadin gashay ma jirto maxaa marka xal ah TV-yadii dhanaa ee deegaanka ka warramaya warbaahintii dhanaa marka laga reebatan dawladda iyo wax yar oo kale hadii la xidhay oo la joojiyay yani maxaa xal oo muuqda balsaada wallahi horta TV-yadan inta badan dhalinyaro fara badan shaqo u ahayd oo reer ka biilanay oo nolol maalmoodkooda ka soo saaranay xafiiska warfaafinta wasiirka wasiir Cabdiqaadir ka horeeyay Cali Bedel ilaa laba wasiir ka soo Xabiib iyo gisi dhowr ilaa iyo ka soo horeeyay caqabadan warbaahintu iyo xaaladan warbaahinta deegaanka mar walba seen buu jirtay laakiin way xalin jireen waxa lagu xalin jiray maadaama oo TV-yada deegaanka ay dhalinyaro fara badan oo deegaanka ka shaqeeyaan oo shaqo abuur u tahay hal mar walba waxa loo arkay dadka ka shaqeynayay marka si sharcigu ma hada wax maanta hadda gacanta la goynayo ma sharcigu wuxuu leeyahay qaab loo dhigo qaab loo tacaalo dhibaato wax uu leeyahay marka
mar walba waxay isku day jireen inay caqabadaas warbaahinta xagga sharciyada kaga imanaysa ay wax kala qayb qaataan si dhalinyaradan shaqo abuurkooda oo ah mid u sii socdo oo halka ku istaagin marka hadda cid su'aasha weydiisay dhexdhexaadin cid hadda dhexdhexaadayso qumid ma jirto talabaad annaka xal kale oo hadda aan sameeyna ma jirto maadaama sharcina aanu ma aaminsanin sharciga sababtoo 4 sano soo shaqeynay 4 sano waxa ku soo shaqeynay maxay tahay iyada taas markuu ka jawaaban baan anagu kuna dhihi karaa sharci baa daraan ku joognay moqt okay waxa jirtay hadda ka hor adiga hawlwadeen aad ka mid tahay oo iyo TV-gaaga RTN la xidhiidhay kadibna la idin soo daayay ma arrimaha sharciga la xidhiidhay xiritaankaagaas mise may anaga laba TV baan lahaynoo Royal TV la dhaho iyo RTN oo laba ku ha anaga niman baan soo wacay waxa dhahay shir baan qabanana shirka kale soo baahiye anagu ma ogeyn kolkii warbaahinta tahay lagu soo wacay lambarka halkaas ku dhagan yahay lambarkaaga shaashad meesha ku dhagan lambar kolkii qofku soo wacdo waa aadaysa laakiin markaad soo aado aad wixii soo qabato baad wixii waa xafiisku wuxuu leeyahay wax qayb dhan oo waaxo u diyaarsan tafatirka la dhaho yeelada oo wixii inuu sax yahay inuu khalad yahay fiirnays haduu sax yahay sidii lagu sidii khalad yahay sidii lagu jooji waxay ahayd baan malayna qolo garabka EBB wax noocaas ku dhawaaqday bay ahayd أنا مركان صدق صامر أنا بقبل نلقوه وقبل كمان نلقوه حرة وأنا القاضي بوليس كان نلقيه ونهن شبينه ورانا كوحن وأنا صوت من الإكساس بعد وهي الحرة قوة ده صح تين خلطها ولا كلا سارة يا واحد أنا كوح متى كلا واحد بالانس اللي ده هجرة وركو بالانس الآن ما بحو هدي واحد قف هدي قف لقيت تبنا يا عبشو قف كي لقى أبني يبى الوقت سي ورك بالانس ونقبه مركا أوريدي ما بعدين بقى وجواب نقول لهاد وهذا حسبي وحنا كسعنيه محمد شاله ربنا برياس إنه يوك هذا جواب تاس أنت لو سو تشيري ويسوون جواب كبحيه هبينكي وأنا الساق هذا ماشي قبل كان أروح حري هبين بان حرنا رورتي وعلى صلاة الله وأنا لسيدا هجان كجوري حلو وحنا مباشر شو جبه هذا جوري بنايري ماشي بالرحلة هذا وأنا رجوري وأنا الرحلة جلي وحش عيادي وحاسنا مين قوسين مركا هذا هول شقاس كل عكهنتي أو فهم دركت مع ضي تدكي لو صادري هم بهايده وحش عيامينا لحريق أدي كاسنا وحوى وريه نجيب أو كترسن هالودين كRTN أو كمية TV هذا ديجان كلاجا ممنوعي أبيد كدوي تاني البرنامج كان حاجة سوسة نقطة أنا وحنا فيترينا ستاسي نبت كليو